السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا وناكسن دمانتين داوديال ميل كسو ضافا عالم كاد كجوكتان الكنوا تيفي عالمي جايز تيفي حرنت سدحي مقالة هجتيجا أخيرا وحلا سوغاري هذه هي إن سوق بيجنا ور وحي وقت حاضر كان نجس سوغاري deegaanka dalka dibadiisa waxaana si toos ah idin socodsiin doona anigoo ah Axmed Ibrahim Axmed waxaana kamid ah qodobada ugu darkroon madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo jigjiga boqosho ku yimid ayaa waxa garoonka diyaaradaha ay Garowe Airport si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin heer deegaana oo horkacaya madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mudane Cabdi Maxamuud Cumar wafdigii uu hogaaminaya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ee soo gaaray xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga ayaa waxay booqasho ku soo mareen qaar kamid ah goobaha horumarka ee magaalada Jigjiga qodobada kale ee waqti xaadirkan daawadayaal naga soo gaaray dalka gudihiisa waxa ugu doorkaroon shirkadda diyaaradaha ee dalka ayaa wada talaabooyin ay ku sii balaaranayso goobaha la dhigto alaabaha tirada badan ee diyaaraduhu dejiyaan khubaro u dhalatay wadanka Britain ayaa soo saaray dawo cusub oo loo isticmaali doono xarunka suuxdinta qodobadaas ayaa hay daawadayaal qodobada ugu doorkaroonay iminkana u diyaar garooba qodobadan iyo kuwa kale oo dhameystiran faahfaahintooda wagaag daawadayaal iminkana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii oo faahfaahsan madaxweynaha dawladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo Jigjiga booqasho ku yimid ayaa waxa garoonka diyaaradaha ay Garowe Airport ku soo dhaweeyay مسؤولين هير ديجان أو هوركعيا مدحوينها دولة ديجان كصومالية توبيا مدن عبد محمد عمر ففاين توركنا وحي نوسو دياري ولي حسن عجاء وفتقوا هو جامين مدحوينها دولة فدرال كصومالية مدن حسن شيخ محمود مركز سواعة دكتين جدا ديار ذا جراد ويلوال وحاسي هير سراو قصو دوي مسؤولين هير ديجان أو هوركعيا مدحوينها دولة ديجان كصومالية توبيا مدحوين عبد محمد عمر عفين كبرلمان كمدن محمد رشيد صاق madaxweyne ku-xigeenada golaha wasiirada iyo kooxaha fanka deegaanka madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo soo dhaweynta madaxweyne Xasan Sheekh kadib saxaafadda la hadlaya sheegay in booqashada madaxweynaha Soomaaliya ay tusaale u tahay madaxweynayaashii faashistiga ahaa ee Itoobiya iyo Soomaaliya kuna tilmaamay midhaha 20ka Gimbood iyo hanaanka federalismka ee EPRDF ee hormuudka u tahay madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo cadeeyay inuu u riyaaqsan yahay booqashada madaxweynaha Soomaaliya oo ku yimid deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in booqashadan ay cashar u tahay kooxaha timkintayaaga iyo naftanyaaga ee calankii dargiga la soo baxay inay si dhab ah u ogaadaan in Itoobiya Soomaaliya oo xilli hore cadow isku ahaan jiray in waqti xaadirkan ay yihiin laba saaxiib oo isku dhow sidoo kale xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay farxad u tahay in Soomaaliya ay la wadaagto khibradaha gaamuray ee horumarka iyo nabadgelyada iyo waliba ka faa'iideysiga hanaanka federaaliga ee deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ku caanamaalay 22 sano ugu dambeeyay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo geesiisa la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in maalin taariikhi ah u tahay inuu soo booqdo deegaanka Soomaalida Itoobiya gaar ahaan caasimadiisa Jigjiga sheegayna in deegaanka Soomaalida Itoobiya uu tusaale loogu daydo u yahay Soomaalida Soomaaliya gaar ahaan horumarka iyo amniga deegaanka ka jira wadiiqooyinkii lagu gaaray sida meel bannaan looga bilaabay horumarka heerkana loo soo gaarsiiyay taasoo khibrad ballaaran u ah Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlay ujeedada booqashada uu ku yimid deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in ay tahay in laga wada hadlo danaha labada dal ee Itoobiya iyo Soomaaliya gaar ahaan amniga soodimaha iskaashiga horumarka ee u dhaxeeya labada dal iyo waliba qodobo kale madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee Soomaaliya ka socda oo booqasho ku yimaada deegaanka Soomaalida Itoobiya wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ee soo gaaray xarunta dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee magaalada Jigjiga ayaa waxay booqasho ku soo mareen qaar kamid ah goobaha horumarka ee magaalada Jigjiga faahfaahinta warkana waxa ay noo soo diyaariyay wariye Maxamed Cabdiraxmaan Gaata soo dhaweynta ay u sameeyeen kadib mas'uuliyiinta ugu sarreeya xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay ugu horeyntii booqasho ku soo mareen goobta ay ka socdaan dhismaha guryaha real estate-ka ee magaalada Jigjiga waxaana wafdiga goobtani markii uu soo gaaray halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay odayaal dhaqameedka deegaanka iyo waliba qaar kamid ah hogaamintii hore ee deegaanka Soomaalida iyadoo halkaan ay wafdiga indhayn ku sameeyeen dhismayaashan waxaana sharaxaad ka siiyay wafdigan uu horkacay madaxweynaha Soomaaliya dhismayaasha
qorshahani iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar kadibna madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka warbixiyay dareenkiisa farxadeed ee imaatinka uu yimid xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga sidoo kalena uga mahadceliyay xukuumadda deegaanka Soomaalida sida ay kor ugu qaaday dhaqanka bulshada Soomaalida geestooda waxa iyaguna muujiyay dareenkooda farxadeed odayaal dhaqameedka deegaanka iyo waliba qaar ka mid ah xubnihii hogaaminta hore ee deegaanka Soomaalida ee iyagu markaasi sida diiran u soo dhaweeyay wafdigan uu horkacay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay tilmaameen odayaal dhaqameedka iyo xubnihii hore ee hogaaminta deegaanka sida ay ugu faraxsan yihiin soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya iyo waliba imaatinka uu yimid xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga kadibna waxa uu wafdigu u sii dhaafay dhanka madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida halkaas oo ay si weyn ugu soo dhaweeyeen wafdigii horkacay madaxweynaha dowladda Soomaaliya kooxda baanbeeda dowladda deegaanka Soomaalida isla markaana madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ka qaatay salaan sharaf kooxda baanbeeda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kadibna waxa uu wafdigu dhex gooshay qaybaha kala duwan ee dhismayaasha ay ka kooban tahay madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida ee uu ugu horeeyo hoolka shirarka ee madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida ee Kaali isla markaana u samaysan sida nashqada aqal Soomaaliga iyadoo ay sidoo kalena ay u sii dhaafeen dhismaha xafiiska madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida halkaas oo ay indheeyeen kadibna waxa uu sidoo kale wafdigu u booqday goobta lagu kaydiyo biyaha ee haamaha risafaayirada ee garab case halkaas oo sharaxaad laga siiyay wafdigan risafaayiradan iyo sida ay uga faa'iideystaan bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga muga biyaha ay qaadayaan iyo sida loo hirgeliyay iyadoo wafdigan loo soo galbiyay dhanka gudaha magaalada Jigjiga ee guriga martida Qaryaandhoodaan wafdigii uu horkacayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ee boqoshada ku joogay xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kulan la qaatay golaha kabineetka ee deegaanka faafahinta warkani waxa inoo soo diyaariyay wariye Maxamed Ciise wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee boqoshada ku yimid deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa soo booqday qaybo kale oo markaasi kamid ah mashaariicaha horumarneed ee laga fuliyay deegaanka iyo qaar kamid ah macadyada iyo kuliyadaha deegaanka waxaana wafdigan ka socday dowladda federaalka Soomaaliya oo ay wehelinayeen soo dhaweyntii kadib mas'uuliyiinta ugu sarreysa deegaanka oo ugu horeeya madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ay soo booqdeen macadka maareynta adeega shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaasi oo ay kula kulmeen qaar ka mid ah ardayda wax ka barata xubnaha ku xireysan ee tababarada gaagaaban ku qaata iyo maamulka macadkaasi maareynta adeega shacabka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo halkaasi warbixin kooban oo ku saabsan macadka ugu soo bandhigay wafdiga kadib wafdigan oo isku duuban oo horkacayo madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxay booqasho ku tageen cisbitaalka weyn ee referalka ee Malas Memorial Referral Hospital ee magaalada Jigjiga oo adeeg siinaya in ka badan 5 milyan oo qof soo indhaynta qaybaha kala duwan ee cisbitaalkani kadib ayaa waxa wafdigan sidoo kale si ballaaran loogu soo dhaweeyay markay booqdeen kuliyadda bolotechnikada ee magaalada Jigjiga oo iyadu kamid ah mashiinada markaasi lagu dagaalamayo saboolnimada iyo dib u dhaca wafdigan ayaa waxay booqashada kadib ku soo laabteen xafiiska maamulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaasi oo xafiiska madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ay kulan kula yeesheen kabineetka deegaanka kulankan oo ahaa mid waftiga loogu soo bandhigay horumarka kala duwan ee deegaanka ayaa waxa ka soo qayb galay afayeenka golaha xildhibaanada dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ahna gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq madaxweyne ku-xigeenada deegaanka iyo guud ahaanba kabineetka deegaanka waxaana ugu horeyntii kulankani furay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo waftigan ugu soo bandhigay guud ahaanba geedi socodka horumarineed ee deegaanka gaar ahaan maamulka suuban gulaha laga gaadhay asaasiga la dagaalanka saboolnimada dib u dhacaya musuqa iyo guud ahaanba horumarka iyo cadaaladda dhankiisa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulankani ka hadlay ayaa ugu horeyn mas'uuliyiinta iyo deegaanka uga mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee markaasi lagu qaabilay kana markhaati kacay horumarka ballaaran ee markaasi dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ku tallaabsaday isla markaasina cadeeyay inuu deegaanku ku dayasho mudan yahay socdaalkan oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftiga uu hogaaminayay ay ku yimaadeen deegaanka ayaa ah kii koobaad ee madaxweyne ka socday dowladda Soomaaliya oo markaasi ku yimaado dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kulan taageero iyo aqabyo kala duwan ay ugu deeqeen qurbo joogta dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ururka wax maqlayaasha ayaa ka qabsoontay magaalada Jigjiga faafahinta warkana waxa inoo soo diyaariyay wariye Bashir Abbas
kulan taageero lacag iyo agabyo kala duwan ugu deeqday qurbajoog u dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ururka wax maqlayaasha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kaasi oo soo agaasimay xafiiska arrimaha haweenka iyo dhalinyarta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyadoo kulankan ay ka soo qayb galeen wasiirka xafiiska arrimaha haweenka iyo caruurta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Marwaan Raxmo Sultaan Maxamuud Haybe iyo waliba gudoomiyaha jaaliyadda UK Mudan Cali Ugaas Takhal iyo xubnaha maamulka ururka wax maqlayaasha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya daba kulankan oo qurbajoogta u dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxay gudoonsiiyeen deeq agabyada aaladaha casriga ah ee dhanka maqalka u sahlaya dadka wax maqlayaasha ah oo ay gudoonsiiyeen ururka wax maqlayaasha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya sidoo kalena kulankan ayaa waxa kale oo ay qurbajoogta gobolada Qoraxay Jarar iyo Doolo ay xafiiska arrimaha haweenka u sii mariyeen lacaga amaaha iyadoo ay u sii marinayaan xafiiska arrimaha haweenka danyarta ah ee ku dhaqan goboladii ay waftigan qurbajoogta ay ku soo mareen dhawaan Qoraxay Jarar iyo Doolo haddaba ugu horeyntii waxa ka hadlay wasiirka xafiiska arrimaha haweenka iyo dhallaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Marwaan Raxmo Sultaan Maxamuud Haybe waxaana hadaladeedii kamid ahaa dadkan ma maqlayaasha ee ururkan horumarinta samaystay qoladan qurbajoogta ka timid dalka UK una dhashay dowlad deegaankan Soomaalida Itoobiya mar walba waxay sameeyaan mid maanta koow ama waa mid soo socotay inay mar walba ay dalkooda ay maartay taageero u soo fidiyaan ururkan kada mar horena waxay ku taageereen lacag maantana xilliga hore ee la caawiyay waxa jirtay ballanqaad loo ballanqaaday in maartay dhagaha maqalka ay u soo iibiyaan ay u keenaan taasoo maanta 40 ruux dhagihii ay wax ku maqli lahaayeen ay maanta ururka UK ay halkan ku wareejinayaan ururka horumarinta ee maqlayaasha waxa sidoo kale kulankani ka hadlay gudoomiyaha jaaliyadda UK Mudan Cali Ugaas Takhal hadaladiisina waxa kamid ahaa maanta waxa farxad weyn ah anigoo gudoomiyihii jaaliyadda UK inaan ka soo qayb galo munaasabadan oo maanta aan u fadhino ururka horumarinta maqlayaasha maadaama aanu labadii sano hore aanu faafanaan dhaafin oo halkan ma taqaana ay ku ekeyd ma taqaana deeqdanadii sanadkan waxay go'aansatay jaaliyadu inay yar dhaadhiciso ma taqaana 3 gobol kale ay ku darto wax qabadkeedu ay gaarsiiso 6 gabdhood baanu ma taqaana ugu talagalnay oo 3 gobol oo gobolka Jarar Qoraxay iyo Doolo inaanu min 2 gabdhood balaan min 2 sano aan midiiba ma taqaana 20 ku siino oo gobolkiiba 40 kun aanu dhahna gabdhaha danyarta bal waxa harogrogeena waxa ka heleen waana system aan rabno inay sanad walba ama jaaliyadaha kale naga daydaan oo inuu sii socdaan rab haddaba gudoomiyaha jaaliyadda UK ayaa ballan qaaday isagoo hadalkiisa sii wata inuu guud ahaanba horumarka qaybihiisa kala duwan ee ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay qurbajoogta u dhalatay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ka qayb qaadanayaan horumarka dhinacyo badan ee ka qaaday guud ahaanba dalkani Itoobiya xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta maamulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa tababar u qabtay shaqaalaha maareynta xuduudda shaqaalaha ee xafiisyada deegaanka faafaynta warkan iyo wariye Nuur Xuseen xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta maamulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa tababar la xiriira qiimeynta iyo darajinta shaqada u qabtay shaqaalaha maareynta xuduudda shaqaalaha ee xafiisyada deegaanka mashruucan qiimeynta iyo darajinta shaqada oo ah mid muddo uu xafiisku ku hawlanaa isla markaana hadda la soo gabagabeeyay ayaa la bilaabayaa dhaqangelintiisa kaasi oo la rabay in xubnaha maareynta xuduudda shaqaalaha xafiisyada deegaanka faham buuxa laga siiyo nidaamkani Marwaan Maajida Maxamed Maxamuud wasiirka xafiiska adeega shacabka iyo kobcinta maamulka dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya furtaankii tababarkani ka hadashay ayaa tilmaantay ahmiyadda uu leeyahay dhaqangelinta nidaamkani qiimeynta iyo darajinta shaqada iyadoona sidoo kale kula dardaarantay shaqaalahani xuduudda shaqaalaha ee xafiisyada deegaanka Soomaalida Itoobiya inay faham buuxa u yeeshaan casharada ay ku qaadanayaan muddada uu socdo tababarkani waxa maanta uu xafiisku halkan idinku yeedhay in la idin siiyo tababarka oo ku saabsan dhinaca qiimeynta iyo darajisiinta shaqada mashruuca oo soo socday muddo badan ayaa waxa la idinka baahan yahay sidii la idin fahansiin lahaa ee uga qayb qaadan lahaydeen markaad xafiisyadii aad ku noqotaan aad shaqada aad u bilaabi lahaydeen ayaa la idin socon doonaa muddo 3 maalmood ah marka waxa la idinka baahan yahay inaad faham buuxa ka qaadataan maadaama oo mashruucan uu aad muhiim u yahay tababarkani oo muddo 3 maalmood ah soconaya ayaa xubnuhu ku qaadanayaan cashiro la xiriira mashruucan qiimeynta iyo darajinta shaqada taasi oo la rabay inay faham buuxa u yeeshaan hirgelintiisa
xaflad ugu sagootinayay qurbo joogtii u dhalatay gobolka Shabeelle ayaa ka qabsoontay howlka shararka ee magaalada Guday. Faahfaahinta warkan waxay noo soo diray wariye Maxamed Cabdiwahaab Xuseen. munaasabad lagu sabootinayay qurbo joogtii ka soo jeeday gobolka Shabeelle ayaa ka qabsoontay howlka shirarka ee magaalada Guday. qurbo joogtan oo ay muddo ahba ku sugneed gobolka Shabeelle oo soo indheynayay khayraadka dabiiciga ee eebba ku manaystay gobolkaasi iyo horumarka qaybihiisa kala duwan ee ay xukuumadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ka fulisay degmooyinka gobolkaasi ayaa waxaa qurbo joogtan loo qabtay xaflad lagu macasalaameynayay oo lagu sabootinayay qurbo joogtan waxaana munaasabadan ka soo qayb dhammaan mas'uuliyiinta iyo kaabineetka maamulka magaalada Guday ururka federeeshinka dhalinyarada gobolka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Guday waxaana furitaankii munaasabadan ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeelle mudane Farxaan Cabdi Maajuun oo xusay in qurbo joogtu kaalin mug leh ku leeyihiin dhanka maalgelinta loona baahan yahay in qurbo joogtu ay ku dhiiranaadaan wax soo saarka beeraha oo ay ka faa'iideystaan fursadaha maalgashi ee ka jira gobolkaasi Shabeelle runtii saad oo la socotaan gobolka Shabeelle wuxuu ka mid yahay gobolada deegaankeena gaar ahaan waa gobol uu ka hanqaaday horumarka deegaankeena Shabeelle saad ogsoontihiinba waa gobol hadda asagu iskuna filaaday deegaankana ku filaan doona dalkana ku filaan doona mar haddii xisbigii iyo dawladdii ay shacabka u sameysay nidaam dejiniyeed oo xoolo dhaqato beerley laga dhigay oo qoys walba ay noloshiisa degan tahay waxna ay la soo baxaan beerihii ay beerteen iyo beerahoodina ay ayagana anfaceen heerahoodina anfaceen dalkii deegaankana aan ku anfacayno waxaa loo baahan yahay in marba laga qayb qaato ka qaybgalka bulshadana ma aha oo kaliyeeto dadka deegaanka u dhashay qurbo joogtii lafteeda inay ka qayb qaataan sidoo kale waxa isaguna dhankiisa ka hadlay kusimaha maayarka maamulka magaalada Guday mudane Axmed Maki oo sheegay in xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya uu hirgeliyay horumarka baaxadda leh ee ay qurbo joogtani ku soo arkeen gobolkaasi Shabeelle muhiimna ay tahay in qurbo joogtani ka faa'iideystaan fursadaha dahabiga ee dhanka maalgelinta ee ka jira gobolka Shabeelle iyo guud ahaanba deegaanka Guday waa ogtiin baan maleynayaa cidii taqaanay de kulli coverstoneada ka jira waad aragteen isbedel baa ka jira wadada coverstoneada la dhigay laamiga waad aragteen lightka waad aragteen waxaan u maleynayaa muddo 5 sano ka hor sidan ma ahaan jirin waad aragteen horumarka ay dawladdu ay keentay idinkuna waa inaad horumarkii aad xagga aad ku hayseen inaad gashataan oo maal gashataan dhulkiina dhinaca kale hoggaanka nabadgelyada ee maamulka magaalada Guday mudane Cabdikaafi Maxamed Cali ayaa sheegay in guulo lagu diirsaday laga soo hooyay dhanka nabadgelyada sidoo kalena tilmaamay in nabadgelyadu ay tahay furaha horumarka sidaas la ajligeedna loo baahan yahay in la xoojiyo nabadgelyadaasi ka hirgashay deegaanka Soomaalida Itoobiya geesta kale ururka federeeshinka dhalinyarada gobolka Shabeelle oo soo diyaariyay shahaado sharaf ay ugu tala galeen mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan maamulka magaalada Guday ayaa guddoonsiiyay qurbo joogtan oo hadiyad uga dhigay khayraadka dabiiciga ee ka soo go'a wax soo saarka beeraha Guday iyagoo qurbo joogtana la guddoonsiiyay khudaarta noocyadeeda kala duwan waxayna dhalinyaradani ku sabootiyeen qurbo joogtan riwaayado ka turjumaya fikirka mashaqaystinimada iyo dulsaarnimada heeso wadaniya iyo daantooyinkii hidaha iyo dhaqanka ee uu deegaanka Soomaalida Itoobiya caanka ku yahay Maxamed Cabdiwahaab ESTV magaalada Guday mas'uuliyiinta degmada Fiiq ayaa xariga ka jaray mashaariic horumarineed ee laga hirgeliyay sanadkan 2008 tuulooyinka hoos yimaada degmada Fiiq ee gobolka Hirar faahfaahinta warkani waxay noo soo diray wariye Cabdikaafi Axmed Wali mas'uuliyiinta maamulka degmada Fiiqe oo kormeer indha-indhayna ku soo maray qaar ka mid ah tuulooyinka miyiga ah ee hoos yimaada degmada Fiiqe ee xarunta gobolka Hirar ayaa xariga ka jaray qayb ka mid ah mashaariicii horumarineed ee sanadkan 2008 laga fuliyay tuulada Saliida oo ka tirsan degmada Fiiqe ee xarunta gobolka Hirar kormeerkan oo ahaa mid lagu xaqiijinayay habka loo dhameystiray qorshihii mashaariicda horumarineed ee sanadkan 2008 laga fuliyay dhamaanba tuulooyinka miyiga ah ee hoosimaada degmada Fiiqe ayaa waxa kormeerkan hogaaminayay gudoomiyaha degmada Fiiqe Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo ay wehelinayeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka degmada Fiiqe mas'uuliyiintan ayaa markii ay gaadheen tuulada Saliida oo ka tirsan degmada Fiiqe xarunta gobolka Hirar waxay xadhiga ka jareen qayb ka mid ah mashaariicii horumarineed oo isugu jira dhinaca biyaha iyo iskuul waxbarasho oo sanadkan 2008 laga hirgeliyay tuulada Saliida ee degmada Fiiqe kadib munaasabadii xadhiga lagaga jaray mashaariicdaasi ayaa
ayaa waxaa madashaasi bulshada kula hadlaya gudoomiyaha degmada fiiqe cabdiqaadir maxamed xasan marka bulshada maanta waxaan kula dardaarmayaa barkadan waa tii ugu horeysay ee sanadkan 2008 la idin fuliyo tii ugu dambeysay ma aha laakiin xukuumadana mar walba ay garab taagan tahay ilaa laga helayo qoys walba gurigiisa oo qasabada ugu jirto biyaha ka cabay inta laga gaarayo dawladdu way ka go'an tahay shacabkan waxa la rabaa marka inay ilaashadaan barkadan ay ka faa'iideystaan run ahaantii maanta aad baan ugu farxay sida ay u ooteen durba iyadoo hadda un gacanta laga qaaday hadda kadibna waxaan ka rabnaa un biyaha markay galaanna in saasoo kale looga faa'iideysto qaabkii loo cabi lahaana nidaam loo sameeyo kana faa'iideysataan sidoo kalena kusiisimaha madaxa xafiiska waxbarashada degmada fiiqe cali yuusuf ayaa shacabka ku booriyay inay mashaariicdani tahay hantidoodii isla markaana loo baahan yahay inay uga faa'iideystaan sidii loogu talagalay shacabkan sharafta leh waxaan kula dardaarmi lahaa inay ka faa'iideystaan waxbarashadu yari iyo weyni ma leh wixii adeega ee dawladda ama maxay ka xafiis ahaan la jirana hadii la yiraahdo sanadkan 2009 waxaan idin ballan qaadaynaa in la idin soo dhammaystiro idinkuna kaalintii idinkaga aadanayd horumarka qaybihiisa kala gedsan inaad ka faa'iideystaan baan idin kula dardaarmi lahaa waxaan mar labaad farxadaya inaan maanta halkan kaga wada hadallo maxay hayday horumarka qabalahan iyo guud ahaan degmadeennaba dhankoodana shacabka ku dhaqan tuulada saliida ee degmada fiiqe oo mashaariicahan xadhiga laga jaray ay ku beertay dareen farxadeed oo aan la soo koobi karin ayaa sheegaya inay mashaariicahan yihiin kuwa ay kaga bixi doonaan baahi ay hadda ka hor u qabeen waxayna shacabku hoosta ka xariiqeen inay mashaariicahan uga faa'iideysan doonaan sidii loogu talagalay ayaha iyo natiijada ay ka rabaan qabalaha saliida yaa waxaan aad ugu soo dhaweynayaa marti sharafta iyo bulshada sharafta leh iyaduna maanta soo booqatay xadhika jarka barkada 100% anoo ku mahadinaya waxa naloo qabtay kama sheekeen kara weynidiis waxa eega joognaa barkadii ay dawladdu noogu deeqday oo xadhiga laga jaray baan joognaa haddii aan baahida baahida oo qabanayna kama sheekeen karo barkada baahida loo qabay alxamdulillaah rabbil caalamiin biyuhu meel fog bay loo ahaayeen waxay tagayaan tarfa meel ayaan tagaynay mas-uuliyiinta maamulka degmada fiiqe ayaa wada kormeer joogto ah oo lagu xaqiijinayo dhammaystirka qorshihii horumarineed ee sanadkan 2008 laga fuliyey dhammaanba tuulooyinka miyiga ah ee hoos yimaada degmada fiiqe ra-iisul wasaaraha dalka mudane Haylmarin Nazaalin ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday Kanada faahfaahinta warkana waxa ay noo soo diyaariyay wariye Cabdulqaadir Cali Kaadheeri wafdi ka socday dalka Kanada ayaa soo gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxaana wafdigaasi xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya mudane Haylmarin Nazaalin wuxuuna wafdigaasi ku amaanay dalka Itoobiya inay ka go'an tahay in amni buuxa laga xasiliyo gobolka gaar ahaan xal u helidda qulqulatooyinka ka jira koonfurta Suudaan iyo waliba dalkaasi Soomaaliya intaasi kadib ayaa waxa uu ra'iisul wasaare mudane Haylmarin Nazaalin soo bandhigay wafdigaasi in ay ka dal ahaan ka go'an tahay sida ay uga wada shaqayn lahaayeen la dagaalanka argagixisada intaasi kadib ayaa waxa uu ra'iisul wasaare mudane Haylmarin Nazaalin u soo bandhigay wafdigaasi ka socday dalkaasi Kanada malqabeennada Kanada in ay yimaadaan dalka Itoobiya si ay uga faa'iideystaan fursadaha maalgashiga ee ka jira dalkeenan Itoobiya shirkadda diyaaradaha ee dalka ayaa wada talaabooyin ay ku sii balaaranayso goobaha la dhigto alaabaha tirada badan ee ay diyaaraduhu dejiyaan faahfaahinta warkan iyo wariye Idriis dalka Itoobiya ayaa ka mid ah wadamada dadaalada xooggan ugu jira ka mid noqoshada wadamada uu dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay waxaana guud ahaanba dalka ka socda tallaabooyin lagu sii xoojinayo horumarka ka hana qaaday dalka haddaba shirkadda diyaaradaha ee dalka oo kaalin mug leh ka qaadanaysa horumarka qaybihiisa kala duwan ayaa wada howlo ay ku sii ballaarinayso adeegyada kala duwan ee ay u fidiso bulshada qaybaheega kala duwan waxaana waqti xaadir kan shirkadu u howlan tahay dhisida goobo waaweyn oo ah kuwa loo adeegsado alaabaha kala duwan ee ay diyaaraduhu qaadaan waxaana qorshaysan in dhismaha goobtaasi lagu soo gabagabeeyo lacaga dhan 2.6 milyan oo bir mar uu haddaba arrintaasi ka
hadlay mudane Fisum Abadi oo ka mid ah mas'uuliyiinta gacanta ku haysa hawshaasi ayaa sheegay in ay u qorshaysan tahay in ay hawshani muddo gaaban ku soo gabagabeeyaan maadaama loo baahan yahay in la helo goobo halkan aanu hadda adeegsanayno ka ballaaran oo loo isticmaali karo in lagu dejiyo alaabaha diyaaradaha islamarkaana wax lagu kaydsan karo haddaba dhismahan oo boqolkiiba 65 la soo gabagabeeyay ayaa waxa lagu rajo weyn yahay in uu wax weyn ka tari doono baahida loo qabo goobaha la dhigto alaabta aadka u badan ee diyaaradaha ururka horumarinta deegaanka Tigray oo fadhigiisu yahay waqooyiga dalka Mareykanka ayaa yeeshay kulankoodii sanadlaha ahaa faafahinta warkani iyo wariye Aadan Axmed Cali ururka horumarinta dawlad deegaaneedka Tigray ee ku nool waqooyiga wadankaasi Mareykanka ayaa wada tallaabooyin ay kaga qayb qaadanayaan horumarka ka socda deegaankaasi waxayna inta badan ka hawlgalaan ismayaasha kala duwan ee dhanka caafimaadka waxbarashada iyo wixii la halmaala haddaba ururkan horumarinta deegaanka Tigray ee fadhigiisu uu yahay waqooyiga wadankaasi Mareykanka oo yeeshay kulan weynahoodii sanadlaha ahaa ayaa kulankaasi waxaa lagu marti qaaday mas'uuliyiin ka socotay deegaankaasi Tigray waxaana xusid mudan in uu kulankaasi ku soo beegmay sanad guuradii 42 ee ka soo wareegtay aasaaskii ururkaasi waxayna ballan qaadeen mas'uuliyiinta ururkaasi in ay sii xoojin doonaan ka qayb qaadashada horumarka ka socda dalka gaar ahaan deegaanka Tigray khubaro u dhalatay wadanka Britain ayaa soo saaray dawo cusub oo loo isticmaalayo xanuunka suuxdinta faafahinta warkana iyo wariye Isaaq Cabdulle dunida aan ku noolahay ayaa waxaa ka jira xanuuno badan oo aadamaha dhibaatooyin kala duwan u geysta haddaba xanuunka suuxdinta oo ka mid ah xanuunada inta badan dadka ka dhiga bukaan socda ayaa lagu soo waramayaa in loo helay dawo cusub oo ka tayo fiican dawooyinkii hadda ka hor loo isticmaali jiray xanuunkaasi suuxdinta gaar ahaan nooca ugu daran ama nooca suuxdinta ee ugu awooda badan iyadoo dawadaasina ay soo saareen khubaro u dhalatay wadanka Britain oo in muddo ah ku howlana daraasaad ku saabsan helidda dawada xanuunkaasi waxaana muuqata in ay soo baxayso rajo ku wajahan xal u helidda xanuunkaasi haddaba wadanka Mareykanka ayaa waxaa ku nool dad ay tiradoodu ka badan tahay 22 milyan oo qof oo la daalan dhacaya xanuunka suuxdinta halka wadanka Britain ay jiraan in ka badan 5 milyan oo qof oo qaba xanuunkaasi waxaana calaamad u ah xanuunkaasi in ay qofka dhibto neefta ka soo baxaysa iyo waliba neefta ama hawada uu jiidanayo ee dhuuntiisa maraysa taasi oo keenta in uu qofku si xor ah u neefsan kari waayo waxaana hadda la soo saaray dawo loo isticmaalayo kiniini ahaan oo marka uu ruuxu isticmaalo uu aad iyo aad ugu ladnaanayo guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa war wixii waqti xaadirka naga soo gaaray deegaanka dalka iyo dalka dibadiisa waxaana si toos ah idin socodsiinayay anigoo ah Axmed Ibrahim Axmed aniga asxaabtayga la qayb qaata dhammaantiin isku duuban waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh